gudoomiyaha xisbiga Ucdi Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa dabalka ka qaaday in asxaabta siyaasadda Soomaaliland inay ku kalsooneen doorasho ay xukuumadda madaxweyne Siraayo ay dalka ka qabato ayaa waxa uu yiri waanu sheegnaa inuu sacad inaanu dawladdan ku kalsooneen maadaama aanu aragnay inay doorashadii dhaweyta say u qabatay maadaama aanu aragnay dad iyagu ku caan baxay inay wax qarbudaan ay dawladda xagga sare kaga jiraan inaanu ku kalsooneen dawladdaas waxay gacanta ku hayso amba civil registration haato amba voter registration haato dawladdu lumisay kalsoonida shacbiga inay tahay aan kana tashan doonaa dhowteen doorashada qabato gudoomiyaha xisbiga Ucdi Injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu ka hadlay kulan xisbiyada qaranka Soomaaliland la qaateen khubaro ka socda dalka Mareykanka oo iyagu aqoon sare u leh diiwaangelinta laga sameeyo dalka Soomaaliland waxa horta nooyin waxa weeyeen experta oo Mareykan ah oo horana diiwaangelinteeni qoladii baadhay barigi la isku qabsaday isla ahaa qoladii ka soo saartay reportka oranayay inaan lagu gali karin magaranayay diiwaangelinta mar labaad oo 130 qaldan yihiin ninkaas oo John Fisher baa noo yimi saddex xusbe waxaan jeclay inuu is arkeen shalayto hamagaasha xafiisku noo la kulmay waxaan urursanayay xog warsab u yimi saan u rabno inay wax u dhacaan marka waanu sheegnaa anaga cuudahan sida ugu fiican ee lagu heli karo inay dhacdo dawlad doorasho xalaal ah oo inay tahay koow in marka horeysa la simada dhulka lagu tartamayo oo koow ka tahay diiwaangelintu qod bixiyaasha waa tahay gudoomiye waxa jira in xildhibaanadii golaha wakiilada Soomaaliland loo sameeyay in sharci dejin ku ilaaliyaan xukuumadda in qaabka sharciyada in miyaan la oran karin waxa isku dhaxmilmay xukuumaddii iyo golihii wakiilada Soomaaliland shacabka soo doorteen way isku milmeen aad iyo aad bay isku milmeen dastuurka waa la tuuray dastuur maanta Siraayo ilaa saddex qodob uu jabiyo hadda impeachment lagu sameyn karo laakiin de asaas sheegtay waxaan jirin magaalada baarlamaanka baan strong ahayn laakiin hadda waan naga imaka heshiinay anaga iyo xusbigii magaalada wadani ee dib isku abaabulina waatan qoladan iyo siyaasiyiinta kale forumka sameeyay ayaguna jiro hadda waa in laga ilaaliyo dalka inuu collapse garoobo laana hadda dhabbadu ku socdaa ma dhaba aan ku badbaadi karno isku sii jira dalku taa u sugayso waxa weeye wasiirada aan la dhaarin baarlamaan ansixin shaqadooda qabsaday wax saxiixaya adduunka taas constitution-kana waad arkay waxa ku yahay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucdi Injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu soo dhaweeyay go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ka gaadhay shirka ka dhacaya dalka Belgium ee loo qabanayo dalka Soomaaliya waxa kale oo uu soo jeediyay in dib u eegis lagu sameeyo inuu sii socon karo wada hadalkii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya la iskuna yimaado talo qaran oo laga yeesho